unlock or unlock the taskbar. Cashirkeena ayaa wuxuu ku saabsan yahay sida taskbarka loogu xiro iyo sida looga saaro. Muhiimadda cashirku waxa weeye inaan taskbarka aan aragno sida loo isticmaalo. Sidoo kale waxaan qari doonaa na soo furi doonaa saacadda marka la socod wanaagsan. Marka koobaad waxaan samaynaynaa lock taskbar. halkan banaan imaad oo taskbarka halkaas banaan imaad. kadib waxaan leedahay right click lockna marka ma dhaqaaqayo markaan marnaba never ma dhaqaaqayo taskbarka isla meeshaad istaag right click looga ka saar. taas waa kaas. sidoo kale waxaan samaynaynaa anigoo muuska isticmaalayna inaan dhaqaajino. waan ku dul aadaynaa calaamada falaarka markay isbedesho waan jiidaynaa marka drag leftii aan anaka lahayno waan jiidaynaa hoosa usoo celihayna waan jiidaynaa hoosa usoo celihayna. taas waa taas. sidoo kale waxaan isticmaalaynaa keyboardka anigoo isticmaalayna haddana samaynaynaa isla meeshii istaag. kadib waxaa leedahay alta space bar. intaas markaa tira dhanka bidix ayaa waxaa kasoo bixi doono calaamado 3 ah oo active ah oo move size close. marka aniga waxaan taabanaynaa move oo ah m taabanaynaa. kadib waxaan dhanka midig calaamadaha ayaan isticmaalaynaa 4 ah oo sii kala jeedo up arrow iyo down arrow iyo calaamadahaas ayaa isticmaalaynaa. marka waxaa leenahay calaamada up arrow baa dhaqabanaynaa hore u jiidaynaa halkaasaa la geeyay. sidoo kale waxaa leenahay down arrow hoos soo jiid haddana. waa yahay. sidoo kale hadduu uu kaa diido meeshaas marka uu joogo aad soo jiidi waydo uu diido arrow inay isticmaasho waxaa ku celisaa alt space bar dheh kadib haddana m taabo hoos soo jiid haddana marka soo ma jeed meeshii la keenay 4 geesaa u dhaqaaji karta. sidoo kale waxaa leenahay to resize taskbar by using mouse. taskbarka inaa lagu weyneeyo ayadoo la isticmaalaya mouse. leftii aan qabanaynaa calaamada ku dulaadayna waa dhaqaajinaynaa isla meesha kusoo celinaynaa waa la ballaariyay soomaa. sidoo kale anigoo keyboard isticmaalayna ayaan ballaarinaynaa. waxaa leenahay meesha kusoo dulaad haddana waxaa leenahay alta space bar. kadib waxaa taabataa xarafka s oo u dhigmo size. fallaara isticmaal marka up arrow down arrow arrowgays labada kaleetana waa isticmaali kartaa. sidoo kale halkaas markay marayso waxaan samaynaynaa si automatically ah ayaa u qarinaynaa. marka right click ayaa halkan ku leenahay waxaa leenahay properties. aniga hadda properties ma haysano maadaama ana properties ana haysan waxaa leedahay right click kadib waxaa leedahay taskbar settings. halkan usoo dhaqaaq. meeshan waxaa yaallo automatically hide the taskbar and desktop mode. waa la qariyay soo ma jeeda banaanka u bax. inta maxaa yaala meel banaan haddaa imaato sana ku tiraa wuu kaa qarsoomi kuma muuqdo laakiin haddaa dul imaato soo keen. marka si loo soo celiyo isla meesha haddana right click taskbar waxaa leedahay meeshii marka off soo dhig. halkaas markaa maraydo waxaa noo dhiman to display inaa lasoo bandhigo saacaddii ama la qariyo. si aan taas u sameyno waxaan imaanaynaa saacadda dusheeda ayaa imaanaynaa right click aa leedahay
taskbar marka aan taskbar dhahno hoos ayaa u dhaqaaqaynaa hoos ayaa u wadaynaa waxaan raadinaynaa waatana soo uma jeedo waxaa ku qoran tone system icons on or off anaga hadda waxaa leenahay waa furaynaa marka aan furno waxaa leenahay off waa la qariyay saacaddii ma ujeedaa waa maya waa la qariyay saacaddii sidoo kaleet waxaa qari kartaa qaybtan efalium waa la qariyay ayadana soo ma jeedo marka soo celi saacaddiina soo celi waa la qariyey hadda waa soo baxda soo ma jeedo waa kaa waa la soo celiyey aan ku tusiyo inta maxaa yaal ma taalo saacaddii waa la qariyey ku soo laabo soo celi taas uma jeedo waa la soo celiyey waaya cashirkan muhiimadiisu waxa weeye inaad taskbarka aad u isticmaasho si oo mouse ama by keyboard ama by mouse labadaba inaad u isticmaali karayso saacad ina qareed ina lasoo bixi karayso waa simply marka cashirkan halkaas ayaan ku qabanaynaa cashirkan cashirkiisa kale intaan ku kulmaynaa sidaas iyo nabadgelyo cashirada dib ha loo muraajaciya akhyaaray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu